kulanti waxaan wanaagsan guud ahaan baaqyarta hawada in gala socota ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan kuna soo dhawaada Somali Turki TV iyo magaalada Istanbul waxa maanta dhinacayga fadhiya bidix aan dhahay walaalkan Paracetamol iyo waliba Panadol oo ah mataankiisa waxaan ku kulannay Istanbul magaalada ganacsiga iyo dalxiiska dalka Turkiga ugu horeey Panadol waxaan soo dhawaynay Paracetamol Panadol aniga ها وقلد ما بعد وحي بقى كورة Panadol واكن أم لينا هذا ما والله دواتا ودواقع ما كان هو اسكت كازن أنا حأركض شري ننت أول دحلا لكن نن أول دحلا تركيا أقول ماذا مايا نن كان بمقعد السنة سامحة مقعد وقتها لقى سوق مايا ما أنا نقول بتاعي كان مايا قال ما كان حماتي أنا وحاد استري حكومة الصومالية هاي بوري جناية هذا ومركا دون كتوق لكن ما برا ما بدحل يسد labada niyo kii hormaray maxaan iyo hormarnay taas la isku haystaa nagu diiday inuu markaas Paracetamol u Panadol dhaxlo isagoo hore u sheegay inuu mataankiisa yahay ka geeyeen weyn marka waxa leenahay Paracetamol ku soo dhawo magaalada Istanbul waa dhawahay wariye qaaliya gabadheena run ahaantu waxaa qof aan aad ula socono dhanka social media sida Facebook qofkii kuugu jira oo arkaya inaad tahay qof aad u fahmay Istanbul waxaad soo bandhigtaa quruxdeeda waxaad maaragtay tusaale u tahay quruxda hablaha Soomaaliyeed ma sha Allah may waa ka qaba wallahi aad baan ku salaamayaa dawaan ku dhownahay waqtiga quruxda badan kula qaadanayna maaragtay adiga iyo bahda Somali Turki TV waan idinka mahad celinaynaa waqtigeena quruxda badan aad waan idin salaamayaa waa ku ka Paracetamol kadaan su'aal yar kaftana ku weydiiyo dadku waxay leeyihiin Paracetamol markuu America joogo timihii waa ka biday صح haddana asagoo diyaaradda soo raacay timihiis waxay u ekaayeen timaha Hindida صح Istanbul buu imaada timana ma beeran ninku timana waa leeyahay timo xagee kaaga soo bixin macna maado hurdo ku soo bixin waxaan ku baaqayaa hal lagu dadaalo ducada waaridka iyo daryeelka waaridka wax walba aad jeclaato waa helaysaa nolosha ii sheegato Turki waan imid maalintaan soo galanay waa ogid maalintaan ka baxayna waa ogid qof bas saaran oo vacation ku jiro asxaabtu waqti la qaadanay lama durdurin waqtina taas ma helayn taas marqaati waa ka ahayd marka waxa waa markaan xataa inta ka baxayeen waxa way koofida ma xiran sid cadeyn ay u noqoto ilaanan la durdurin hadda ma waxaad leedahay timaha ma beeran marka ma beeran ma sha Allah sir yar jirta insha Allah loo fududeyn doono Soomaalida adima heli kartid laakiin hadda timo dheeraad oo egto koofiyada ku saaran dadku si fiican timahaaga uma arkaan firdhi balaasta Paracetamol waa jilaa in badan oo in kamid ah waxay soo weydiiyaan Paracetamol su'aal weydii ay dhahdaan su'aasha koobaad oo dadka in badan ay weydiiyaan waxa kamid ah Paracetamol dalka Turkiga ma wuxuu u imaado inuu ku aroosto dad badan arooskaaga ay sugayaan dad badan film aad shay sugayaan Turkiga maxaa ka soo doonta Turkiga waxaan u imaaday dalxiis waxaan u imaaday inaan waqti ku qaato because waa ogtahay anagu waxaan joognaa waxaan ka nimid dal daalkeeda iyo hoosheeda iyo arrimaheeda badan yihiin waan rabay inay xaajiyada igu soo gaarto nasiib darro waxa waa corona adduunka qasayaan imid wadankeeda waxa ka dhacay Jarmalkay joogtaa xamdi lama gali karo lagamana soo bixi karo marka laakiin waxay taagan tahay anaa meel ku xareysanay waqti fiican ay qaado waatay hadda sida su'aasha raadinaysan inay heshay baan u malaynayaa oo ahayd Paracetamol reer ma leeyahay hadda wuxuu yiri xaaskayga Germany bay joogtaa daddan waxay ku jaawareersay inaad xaas leedahay in kale صح dumaashadii waxay joogtaa Jarmalka oo gabadha ii doonan waa gabadha aan jeclahay waa gabadha mustaqbalka u dambeyn doonta insha Allah haduu Ilaahay idmo waa mid aan dumarka ka xushay Allah isku kaayadaayo waxayna joogtaa Jarmal waxa la yiraahdaa Xamdi Saciid Axmed waa ka روايدي أما فيلمكي عنده جها ورير ما الحلال ما الأورنجري محلل ما حد كحسسته وقول يا أبكي بدنا waxaan ka xasuustaa waxyaalo badan waxaan ka xasuustaa wajiga aan jeclahay dad qosol badan dad funky xiisa u haya dad jilayaal oo very talented waxaan ka xasuustaa howl badan iyo qosol badan iyo qaladaadyo naga dhacayo aan u arkayna markaas run ahaantii inay dhiirigelinayaan oo aan ku qosleeno waxyaalo badan oo wallahi run ahaantii dib loo fiiriyo waxaa ka mid ahaa ii sheegato aniga oo
fanaanad qaba oo fanaanadii aan markaas u arkayay inay mudneed waxa ugu mudan in markaas la jeexjeexo oo aan soo xirtay oo ii sheegato fanaanadeenna weyn maxaa la yidhaahdaa Sahro Cumar Dhuule aad u qaraacantay oo fanaanadii ugu la dhigtay yaa la jarjarin iyo dalmar oo maqas loo ordaayo raba inuu fanaanada jarjaro iyo fanaanad kale hal raadiyo anigana aan u arkay markaas dharkayga midii oo aan isdhahay alla ilaahay tana ka samri kartaa iyadoo dhehaysa maya dadka hore soo xasuusay yaan la jarin serious ka hayd marka igula dhigtay maqaskii video yaraan ka hayaa yaan la jarin snapka laga duubay yaan la jarin fanaanad kale hal raadiyo iyo dalmar oo xiiso u qabo inuu wax jarjaroba waxa uu xiiso badneed oo kale ugu qosolka badneed dalmar in anigu ka aarsaday hantii iga dambeeyay anigu ii sheegay garankiisa aan jarjaray haddaan kula kaftamo daawada ama xamarstay maxaa dalmar u siin weyday dalmar garoomadiisa waxa waaye waxba laga ma qaban karo dhaqaatiirta jarmalka ka quusatay dalmar turki gacmaha kor u taageen raashiya waa la geeyay dalmar waxaa la dhahay garoonkan inuu coos ka soo baxo habeenkii xalay ay tagay stage 5 buu ka ciyaaraya يا زمزم كحتى والغروشي wax baanadol firda maasta lagu yaqaanaa adigu maxaad gargaar ugu fidi weyday ninkaas درمل صاحبكي habeenkii wax isku keen dambeysay horta airport Nairobi hadda ka soo deganay waa isku day nin awaala la yiraahdo inaan u geeyo oo xoogaa aan wax ku ogaa awaala qasqas macnaha madowga ma kala dagaalamay maya madowga midabkeena waa ku faanaa maya aan ku saxbaan dholo I think madowgaad kale maya wallahi madow ninka u wada asaaba maya waxbuu hayay buufinay laakiin waxaan isiri horta kabatolo kabtiisa aan tale awaala qasqas laftigiisa وجاي ودي قراحة ده سلامنا لبدينا بقى إن برستمول ضلك التركية صح إن حكى بحي مكتمات waxyaalo badan maxaa kamid ah Soomaalida ku dhaqan dalkan sida u firfircoon tahay sida ay diyaar ugu yihiin ahaantii maaragtay inay mar walba ula jaan qaadaan adduunka meesha ay ka joogaan in dal Soomaalida laga jecel yahay uu run ahaantii ay Turki tahay dal aad dalxiiska ugu macaan soo dhaweyn fiican siiba xilliyada kuleelaha waxaan dadku ugu baaqayaa inay u dalxiis yimaadaan saas qaali uma aha laakiin marka xoogaa la yar qabsato hadda anaga aan soo laabano kala maciishadii waxay fahanay waxaan ira Turki inay raqiis tahay waa diiday laakiin marka hore ku soo dhaweynaysaa run ahaantii aad bay ku soo dhaweynaysaa dal u qalma waa markii labaad ku soo laabtay qof walba fahmi kara waxa ay soo celiyay waa wixii aan uga bartay iyo wixii aan Barastamol dadka Turkiga jooga raal noqon dadka Turkiga jooga waxay leeyihiin ninka Barastamol markii hore uu naga tagay magaalada waa laga xiray maalinku imaaday waxa isla koobsaday wadankii la furay iyo asiga yimid si fiican maxaa dareentay adigu markii lagu yiri qadar baabataaba waxaan dareemay Soomaalida hoosh hindida ma soo wadaawaan sari dadka dhawrka iga taawana aniguna aan leeyahay iska ka ilaaliya wali weliyay aadan ugu farxan ahaantii waxaan leeyahay nasiib wacan buu Ilaahay sukaa soo beegay magaaladiyo maaragtay shadaan ahayd magaaladiyo qaboobay magaaladiyo muqaayadani waxa ugu horeysay fadhigeeda markii aan anagu aan nimid wax xirnayd oo ogtahay tugo un baa loo qaadanayay marka aniga saa markaan u soo galay magaaladii Liihow maxaa la yiraahdaa Maxamedow tigid khasaare iga dheh waa soo qasaarteen macnaha waa isla markiiba saa nalalkiisu loo ifiyay markaan baxnana waa tii la xiray marka labada credit baan isku dhuftay waxaan soo dhajiyay qof lagu heliyo oo Ilaahay qeyrkiisa maaragtay garbaha saaray oo iska ilaaliya su'aalaha qaafa Barastamol wax credit hadda waa ka saasal igu haystaa adigu naftirkaaga waa duceysanta baan dholo Barastamol baa wax kugu daray oo familkaaga oo aan isla socotaan qeyrka marka wax uu ka soo gaaraya maya ninka meed ku raacaya tahay in raali noqda wali kaftanka socda in Barastamol waxa jira in dad badan waxay isweydiinayaan ninka Barastamol la yiraahdo in kasta ay ku yaqaanaan qaarkood baanadol oo saaxiibka baanadol oo la baxdayba baanadolow ilaa heer intee leeg bad rabtaa aktarnimada Soomaaliyeed inaad ka gaartid ilaa heerka Hollywood ay ka taagan ilaa hadda ma jiro film Soomaali leedahay oo Hollywood uu gatay ama ay
lagu soo bandhigay marka rajaynta leeg baad ka leedahay waxaa hubaala inaan noqon doono qofka ugu horreeyey oo Soomaaliya oo riyada noocaas u rumeeyay dadkiisa waxaa yeelay waxaan haystaa dadkeedii waxaan haystaa dad jecel oo garab taagan ma ahan hubaasha aan leeyahay waan hubaa inaan ku hubo talentigayga kaliya ee qofka bini'aadanka kaliya wax ma noqon karo marka waxaan haystaa dad aad ii jecel familkayga asxaabtayda jalayaashayda ii sheegeeto maaragtay sida ninkan ag fadhiya heel buu ila ag fadhiyaa filimka weyn oo hadda America oo maaragtay ka dhacaya Nairobi wuxuu ahaa mid run ahaantii Soomaaliya mid ku soo duub markii waan yara daalanaa marka supportkeeda iyo himiladeeda iyo dhiirigelinteeda uu geliyay dadka asaa diyaariyay kaamirayaasha asaa diyaariyay asxaabta asaa diyaariyay marka dad marka qof saas oo kale familkaaga ah haysato kula dadaalayo asxaabtaada sidoo kale waxaa kaloo jira nin asagana Axmed Kaarshe la yiraahdo oo maartay cameraman oo abti igu aadan oo asagana hawsha dhankiisa ka wada jilayaasha reer Nairobi dhan baan u mahadcelinayaa filimkan baaran ahaanta u dhigma mid Hollywood ka ah hadda soo socda haduu ilaahay ma America waa maasan tahay Bristol waxaa tagtay Soomaaliya caasimadii Soomaaliyeed ma tagtay waa tagay haa waad ugu raadinayso igu heli weydo waa tagay caasimadii waa ka qubaystay waa ka qadeeyay waan joogay aababa joogay walaalahay waan sii gudbay waxaan gaaray hooyo ma sha Allah waqti fiican baan ku soo qaatay dalkeena Soomaaliya waxa la rabaa filim inaa ku soo jishid Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho maadaama ay tahay caasimadda dalka Soomaaliyeed maxaa kaaga qabsoomay wallahi filimka hadda aan Nairobi soo wareejinay America wuxuu ahaa inuu lagu duubo lagu dhigo lagu soo bandhigo xamar waa ka soo wareejinay arrimo badan oo jiro awgood anagoo arkeen marxaladda inayna noo maaragtay noo suurtagelinayn jilayaashiyo isla kala waayay marka iyo dadkii loogu talagalay oo aan runaanti markaa Nairobi ku sugnaa marka filimka Nairobi aynu soo wareejinay hadda kor waxaad ii sheegtay inaad soo wadi filim la yiraahdo Marification waa marriage vacation ki weeye America America waa filim ku saabsan dhibaatooyinka ay raggan baasaboorada la ordaayo u geystaan dumarka Soomaaliyeed ayuu ka faa'iideysanaya daruufaha heesta in nolosha marka ay ku sugan yihiin waa tahay Bristol da'deeda run ahaantii saas uma weyni qof aad u yaraan ahay kama badinayo 19 برانك واي مركز نوقع عليه والله توني سجل كده بانا ضلنا قاعد يا برامج قرح بدن بهالكان nooga qabsoomay waxaan rajeynayaa inaad ku soo dhawaateen Samtirka TV walaalahayga quruxda badan soo dhawaada filmaantiina waan rajeynaynaa inaan daawano gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxay sugayaan filimka la yiraahdo Marification in badan baa soo weydiisay hadda ka horna waan nala sheer garaysay in soo saari doonto filim noocaas oo kale oo nala wadaagtay marka xilliga uu soo baxaya qof walba u dhigtaagaysa xilli cayman noo sheegtaa maalinta ciid insha Allah haduu ilaahay maalinta ciid haduu ilaahay waa filim aad u weyn waa laga shaqeynayaa waa Nairobi iyo Mareykan ninka Nairobi farxiyo kamida Trisha ka ii sheegato waxaan yiraahdaa Nairobi waxa ka gabar la yiraahdo dhanka Nairobi farxiyo kamida maya Mareykan dhanka Mareykan bay ka taabtay dhanka Nairobi naashi gabar la yiraahdo aktarkana waa aniga aktarka xigeenkana waa asaga atrishada kala mustalivo عبتوي ماتي ارجع ساعه كداي واقف له الشعل يا ايغا عبتوي لا سocda انا هذا كسو كان باش دال كده ما نغمقلا دال كده نغمقلا سما ما شاء الله والسلامنا ولاش المستلفو اروس كده halkaan uga ambaliyeenayna insha Allah mardhow aroos waaye naashi waa salaameena dhamaan kruuga filimka dhan baa salaameena dhamaan Samtirka TV maxalli Allah som ومر لو باهنا oo baahideeda ay taagneed maadaama hadda ay noqotay xarunta ugu weyn ee Soomaalida Nairobi Dubai ay ahaan jirtay hadda Istanbul Turkiya iyo Ankara ay u soo socotaa shaqo leedin baahna xilli dadku idin baahna baahideeda ay jirtay TV Soomaaliyeed oo Istanbul ka baxo iyo Ankara yaa ku soo aadeen runtii adeega aad u haysiin bulshada aad ay kaga mahadcelinayna aadna ugu faraxsanahay inaan maanta idin la fadhiisano maadaama abwaan ahayd ninka la yiraahdo Bristol
erayo aad nooga tegi karto ma jiraan oo xasuus ah eraya idinka tagi karo xasuus ahaa abwaanadu waa duceeyeen waa idin duceynayaan ma fadhidaa maanta maskaxda haa way fadhidaa nimankan xitaa koofiyada isku soo ekaysta maadaama abwaan tahay ama duco ama wax rabto baa noqoto wax nooga tag ها anigii baa ducada weydiinaysaa laakiin maaka dhankaas u badan yahay wadaadnimaad waxaad kusinaysaa waan malaynayaa waa yaabanahay maya wallaahi aad baan horta aad baan waxaan ugu faraxsanahay siduu sheegay yarkan abtigu waa zaki xilli liin baahan yahay imaadeen Nairobi hadda waa la hadal hayaa Turkiga waxa la leeyahay waxay noqon doontaa booska Nairobi way gali doontaa Soomaalida aad bay u soo guurayaan insha Allah marka xilli liin baahan yahay waa imaadeen waxyaalaha aan ka hadlayay oo aan ku arkay dadka Soomaalida Turki joogto inay firfircoonidii Soomaalinimada iyo maaragtay hab dhaqankeedii ay leeyihiin waxa tusaale u ah isagta TV-gan maanta marka waxaad in leeyahay Ilaahay idinku guuleeyo hawsha haysaan aad baan idinku faraxsanahay shaqadana bartaas ka sii wada dad badan oo mujtamaca magac ku dhaxlana mar walba way yimaadaan magaalada ay sheegato inaad maaragtay u soo talisaan dadka oo aad maaragtay sidaan oo kale u wada fariisataan barajeenaya haduu Ilaahay barastama hadda dhinacaas aad fiirinaysaa halkaas maxay aba qadadii yaa taalo qabowday loo gobsi barastama horay waxaan u niro orod soo qaday laakiin wuxuu nagu yiri Afrikaan dargaan noqonaya hadal cunada aado marka waan kaaga mahadcelinaa adoo baahan baad noo warantay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته